horta ilaahay baa mahad leh inoogu dhameeyay sida nabadgelyada ah ee ammaanka ah ee quruxda badan ma sha Allah halka waxaynu isugu nimid maanta waa laba kalmadood weey waxaynu halka ka odhanaynaa waxa weeyaan waa duco iyo mahadnaq ducada adeenu mahadnaq hadaan ku horreysiino waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan reer Somaliland sida u dhayihiin dhammaantood soo dhayihiin saddexda xisbiba dadkii halka u taagnaa aan habeenka caajisin qarannimada Somaliland u hiiliyay ayaan ugu mahadnaqayaa sidii sharafta lahayd ee ugu hiiliyeen waxaana si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan xisbiga kulmiye iyo dhammaan baawintii reer kulmiye sida uga howlgaleen sida u soo saareen xisbigooda kulmiye si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa reer Gabiley oo noqday gobolkii guusha sida horeba loo yidhi waxaan aad ugu mahadnaqayaa reer Gabiley sida hagarliida ah ay nolol shaqeeyeen ma jirteen guusha Gabiley haddii aanay dadweynaha reer Gabiley nala shaqeyn iyaga mahad dale iyaga nu mahadnaqano sharafta saarayna waxaan halkan uga duceynayaa haddaba waa duco madaxweynaha cusub iyo musharaxiyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdilaahi Saylici waxaan leeyahay reer kulmiye waxay ku guuleysteen madaxweynihii shanaad sida weyn loogu hanweynaa isaga iyo ku-xigeenkiisaba waanu duceynayaa waxaan leeyahay ilaahay xilka idin fidudeeyo ilaahay hamigiinii idin dhabeeyay ha idin hirgeliyo annaguna waan idin garab taaganahay dhammaan qarankaad u hiiliseen iyo qaranka Somaliland baa idin garab taageeyeen hambalyo ayaan leeyahay aad iyo aad kadaba ilaahay idin kadbo hoggaanka wanaagsan maanta aynu helnay ma sha Allah aad baa loo mahadsanyahay